kulan hawleedkan ay soo qabanqaabisay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland ayaa ahaa mid lagaga tashanayay qorshaha waxqabad ee 2022 ay ku hawlgeli doonto wasaaradda jidadka iyo horumarinta jidadka Somaliland kulanka oo ay ka soo qayb galeen agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland maareeyaha hay'adda horumarinta wadooyinka agaasimo waaxyada kala duwan ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland ayaa lagu naaqashayay qorshaha waxqabad ee sanadka 2022 ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland waxaana ugu horreyn madashaasi ka hadlay agaasimaha qorsheynta ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland Cabdilaahi Isaam kaasi oo ka waramay waxaanu ka soo dheegnay 5 years strategy plan-ka wasaaradda iyo hay'adda madaarada oo xitaa ku jirta strategic plan-ka wasaaradda u degan oo qoran oo buuga waxa laga soo dheedayaa sanad walba hadana qorshe sanadeed oo loo sii kala jajabiyo hadhowna activity qorshe sanadeedkan aan maanta xaqan ku ansixin doonaa wax walba waxay markay soo diyaarsato ee official laga dhigo waxa la mideeyaa qorshaha ay soo diyaarin doonaan geesudayaguna waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland Axmed Abukar Maxamed iyo maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka Somaliland Mawlid Taani kuwaasi oo ka waramay qorshayaasha waxqabad ee wasaaraddu ay ka howlgeli doonto sanadka 2022 ee aynu ku guda jirno sanadkan seen u balan qaaday caasimada insha Allah gelinka dambe iyo gelinka horeba oo shaqeyn doonaan waaxyada adeegyada bixiya bishan labaad baan bilaabnay marka koodeedaan iyo sanada ay dadku geli ka daba marka ay man karaan gaadiidka iyo hoostooda ka geli ka daba man karo wasaaradda waxay kala duwan marka in geli ka daba marka ay shaqeeyaan si adeegii dadka subaxii mashquulka ah u baahan marka in adeeg wasaaradda helaan ugu fududaato haddii halkan nahay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka waxa qaranka inaga sugaya wax qabad far badan oo positive ah waxaan ognahay waqti xasaasi ah ku jirnaa waxaan rajaynaynaa inaan muxuu ahaa inagu dadka ku aqoon doono wax qabad qaranka inaga sugayo inagu igmanahay dhamaanteen ku xisaabtami doono qofka meel kasta joogo shaqada marka qaranku inoo igmaday ee la inaga sugayo inaan weerar dhan ku sameeyno muxuu ahaa aan level dadajino hay kamid tahay muxuu ahaa wixii muxuu ahaa inagoon yar loo qaadanin haddana quarter qaadanna saddexda bilood ugu horreeyay waxay noo qoondaysan saddexda ku xigtay maxaa inoogu xiga lixda bilood sagaal ka bilood waxay maraysaa nidaam caynkaas haddii la yiraahdo qaybta gaadiidka haddii la yiraahdo insha Allah isagana waxaan soo bandhigi doonaa khamiista inta ugu dambaysa haddii la yiraahdo in la karjeelno waxaan markaa isaga qorshiisa faahfaahsan isaga laftarkiisa qaybta gaadiidka ka soo qayb gali doontaa waan wadaagi doonaa waa tolo wadaag bay nahay xoolaas ku jira marka waxaan jeclaan lahaa inaan barnaamijka laftarkiisa ma aha waxaan afku ka nidhahnaa inaan isku xisaabtano saddexda bilood ee ugu horreeyay markuu sanadku Maxamed Umar Daariq RTN